السلام عليكم. ها waxaad isweydiinaysaa sideen u sabraa waxaad u sabartaa sidii adigoo soomanoo kale waxaad hubtaa in salaada maqribka la adimi doono xilliga afurkana imaan doono sabaroo adkayso kaliya waqti yar ayay u baahan tahay dhammaan murugadaada alla farxad ayuu kugu bedeli doonaa riyooyinkaagana way rumoobayaan mugdiga habeenkii si walbuu u dheeraado waxaa la hubaa inuu iftiinka maalintu ka daba imaan doono intaa kadib siduu ahaa sabarkii nebi ayuub calayhi salaam nebi ayuub wuxuu alle siiyey 14 caruur ah xaas fiican iyo xoolo badan waxa uu lahaa dad badan oo u adeega kana shaqeeya hantidiisa wuxuu kale uu lahaa beero waaweyn oo ay ka baxaan dhammaan qudaarada oo dhan waxaa intaa u dheeraa nebinimo cibaado badan iyo nolol raaxo leh oo qof kasta ku haminaya inuu ku noolaado xaaladii nebi ayuub ayaa hal mar isbedeshay waxaana ku dhacay xanuun uu la kici waayey kadibna xoolihii iyo shaqaalihii ayaa ka baxay sidoo kale waxaa ka geeriyooday dhammaan carruurtiisa uu dhalay oo mid mid u dhintay waxaa ehelkiisa ka soo haray xaaskiisa oo ahayd xaas fiican waxayna noqotay gabar fariid ah waxay dantii ku kaliftay inay shaqo tagto oo ay u khidmayso guryaha si ay u hesho nolol maalmeedkeeda nebi ayuub wuu sabray wuxuuna ahaa qof aan ka caajisin dikriga alle nebi ayuub jirkiisa qaybo ka mid ah ayaa marba go'aysay dadkii oo dhanna way ka tageen marka laga reebo xaaskiisii oo iyada ku mashquushay daryeelkiisa iyo quudintiisa maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaaskiisa ku dhahday nebi ayuub maxaad alle u weydiisan weeday inuu dhibta kaa qaado nebi ayuub waxa uu dhahay ma xasuusataa inta sano aan caafimaadka qabay xoolana haystay xaaskii waxay dhahday haa 70 sano ayaad caafimaad qabtay oo ku nooleed nolol barwaaqo leh wuxuu dhahay nebi ayuub alla wuxuu i barwaaqeeyey 70 sano ee miyaanan dhibta u samrayn 70 sano kale nebi ayuub wuxuu samray muddo dhan 18 sano oo dhibaataduna ku sii siyaadaysay ugu dambeyntii xaaskii nebi ayuub waxaa loo diiday shaqadii dadkiina albaabada ayay ka soo xirteen kadib markay aragtay inay wax cunto haynin ayay iska jartay timaheedii oo iibisay markaas ayay ku soo gaday cunto si ay ninkeedii u siiso cuntadii ayay u keentay nebi ayuub markaa ayuu weydiiyey xaaskiisii meeshay ka keentay cuntada sababtoo ah wuu ogaa in shaqadii loo diiday xaaskiisa ma rabin inay u sheegto laakiin nebi ayuub wuu ku adkeeyey wuuna ku celceliyey kadibna way u sheegtay inay gaday timaheedii nebi ayuub markuu arkay in dhibtii meel aad u xun gaartay ayuu samada fiiriyey uu alla u dhawaaqay wuxuuna yidhi allow dhib ayaa i taabtay adigana waxaad tahay rabbi naxariista markuu dhibaatadiisii u sheegtay allah ayuu farajkii u yimid alla wuu caafiyey nebi ayuub farxad ayuuna ugu beddelay wuxuu alla qadaray inay xaaskiisa da'yaraato oo dhallinyaro ay noqdaan labadoodaba sidoo kale alla wuxuu u soo celiyey carruurtoodii beerihii iyo shaqaalihii dhammaantooda waa adiga mar walba dhibaato sheeganaya waa adiga mar walba cabanaya miyay ku soo gaartay dhibaatada soo gaartay nebi ayuub oo 18 sano miyaad dhibaatootay miyaad weyday dhammaan carruurtaada miyaad weyday dhammaan hantidaada miyaad weyday dhammaan caafimaadkaaga miyay kaa tageen dadka oo dhan marka maxaad la murugoonaysaa adiga